madaxda xisbiga wadaniga ee dalka Switzerland ayaa dowladda Silanya waxa ay ugu baaqeen in ay xil iska saarto sidii wax loogu qaban lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku tabaalaysan meelo ka mid ah Somaliland. Cabdirashiid Guure ayaa ka soo diray warkan halkaasi. kulan ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee Somaliland ee fadhigiisu yahay magaalada Zurich ee wadanka Switzerland ayaa waxa ay ka dhacday isla magaaladan Zurich ee wadanka Switzerland. munaasabada waxaa soo buuxdhaafiyay mas'uuliyiin fara badan oo ka tirsan xisbiga gaar ahaan mas'uuliyiinta ka shaqeeya gobolada wadanka Switzerland waxayna iigu sheegeen kulankooda degdega ah inay kaga arrinsanayaan umuuraha xisbiga iyo sidoo kale abaaraha aafeeyay dad iyo duunyaba ee ku dhuftay qaybo ka mid ah galbeedka Somaliland. hadda ilaahay halkan isku keenay maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa weeye annagoo ah xisbigii wadani ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Somaliland ahna xisbi mucaarada waxaa maanta halkan garabkayga fadhiya gudoomiyihii xisbiga Maxamed Usmaan Abubakar, gudoomiye ku-xigeenkii أحمد مومن قدوميه قلها بحق موري علمي أحمد وقيه دقالها حمسين محمد ورسم وحكرونا الفردية وقيه حسب قلانتي سي سويسرلاند عبد الرزاق موسى جبريل وحكرونا الفردية حريريه حسب قلانتي سي سويسرلاند عبد الله محمد حسين يعني قوي محمد شرطنا فيانك حسب وطني لانتي سي سويسرلاند أنا أقول في دون تاريخ حسب مرك هالكن لقى فري يو هولي ساكن كسر يو حالكي سال حضو وقت هذا كان القاو مريو وحن أنا كلمة دقيقة بورن كورنا يو أنا بقاطع أنا كهاللو بيان يو حوي وقت هذا كان مانتها دلكني أما جمهورية الصوماليلاند وانكور ورقنا حالك يكون جرتو يو حيكون سكانتها يصير حالك هي يصير حكومة ديني أي حوضه waxaan arkaynaa oo indhaha laga qarsan karin oo socda abaaro baahsan aafo daba dheeraatay yani dadkii xaaladooda laga dayrinayo waxaan arkaynaa in xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ay gaabis ka tahay xusin mudan xisbiga wadani oo ah xisbi mucaarada inuu uga galgal badan yahay oo uga wax qabad badan yahay waxyaalaha socda oo abaaraha ka qayb qaadanayo oo wax walba ka qayb qaadanayo oo برنامجه بدن بقى صور عي لا عيار وطني لا أفور وطني لا عيد وطني هالصوحة هذا وحقبض أو حسب وطني سميه ما هي حكومة. نبو هرم وحنا هكذا كسلام يا دمان تاجريش حسب وطني جودهان كارهان تاجريش حسب وطني يودن كن سويسرلاند وحنا كلها كان سلام هو لو مرينا يا دمان شعب وينهر الصوماليلاند ودي يتبدل ملاي adduunka kaga sugan yihiin waxaan sidoo kale salaamayaa dhammaan madaxda ugu sareysa xisbiga wadani ee ugu horeeyo mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro maanta halkan waxaan ku qabanaynaa kulankii ama shirjaraadkii ugu horeeyay oo aan kaga hadli doono waxyaalihii xisbiga u qabsoomay intii uu halkan jiray iyo qodobo kale aan halkan maanta aan u qabanay war-saxaafadeedkan aan kaga hadalno ugu horeyn haddaan ka warramo xisbiga wadani laantiisa Switzerland waxaa la aasaasay oo halkan dibadda lagu taagay dadaal badan ka bacdi iyo juhdi badan la soo geliyay 26 December sanadkii tagay 2015 intaas markii xisbiga la taagay hadda waxaa ka soo wareegtay muddo 3 bilood muddada 3 bilood waxyaalo waaweyn oo la taaban karo ayaa noo qabsoomay oo ay ka mid tahay inuu noo dhisan yahay tahay maanta laantii oo dhammaystiran sida guddidii fulinta oo noo dhisan golihii dhexe iyo sharciyadii xisbiga oo aanu dhammaystirnay waxaan uga sii gudbayaa baaq halkan aan uga jeedinayo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee waddanka Switzerland iyo dhammaan shacbi weynaha reer Somaliland waxaan ugu baaqayaa waxay nagu soo foole maalintii qaranka waa 18 May waa maalinteenu dib la soo noqonay xornimadeennii waana maalinteenu astaanteena qaranka ku suntan tahay sida dad badan ay la socdaan abaabulkeedu wuxuu ka socdaa si maahay xuska maalinta lagu weyneynaya magaalada tan Zurich waxaan markaa ugu baaqayaa dhammaan shacbi weynaha reer Somaliland ee ku nool
Switzerland guud ahaanba gaar ahaan reer Zurich inay gunta dhiisha isaga dhigaan sidii uga midho dhalin lahaayeen qabsoomidda xafladaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta waxaa ilaahay mahad iskale kulankan maanta sida nabadaan ugu qarsoomay in iskugu imanay dhammaan xubnaha xisbiga dhan dhammaantood aad baan ugu mahadcelinayaa. dhanka kale haddii aan ka hadlo xisbigu wuxuu xalintiisa ku taallaa waddanka Switzerland gaar ahaan magaalada Zurich waxaanu ka shaqeeyaa 26 gobol ee waddanka iyadoo ay jiraan taageerayaal badan oo ku nool gobolada dhammaan markasta sida ay noola shaqeeyaan aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan halkan hambalyo uga dirayaa gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga sida fiican ee la isku isku xiran yahay meel kastoo la joogo. Switzerland waxaan ugu buurinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga inay isku xirnaadaan oo ay dhammaantood xiriir dhow la wada yeesho sida imika halkay taagan tahay meel kasii fiican baan rajeynayaa. bismillahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waan salaamayaa guud ahaan ummadda afka Soomaaliya ku hadasha gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda reer Somaliland meel kastay joogaan dalay dibadba iyo taageerayaasha xisbiga wadani guud iyo dibadba. kelmadda qoliyaha raba inaan sheegaa waxa weeye Soomaalidu ama dadkeenu waa dad xoolo dhaqato ah oo ku tiirsan xoolaha iyo dadka miyiga ayaa 80% ama 70% dhaqaaleyn ku xidhay. waxaan rabaa inaan xuso oo aan xarakeeyo kelmado uu lahaa awogey oo gabay ahaa isagoo kaga hadloonay markaa halkay ugu jirto ama tiirka ee xooluhu ugu jira ummadda Soomaalida. gabigiisa waxaa ka mid ahaa dhoobada miyi magaalo way isku dhisan yihiin haddaynu nafku dhoofiyo lahayn dhogoriiro geel ama dhinacska subagariyo dhaadano dibiga ama shayga dheeran iyo dhiiranoo faraska ama dhaga ballaadho dabayr dhigiyo saadkaaga ama kaa dhaqaalo batiyo dhaadano adhiga dhuuniga dagaalama helo dhowrasho qoro dhulka lagama dhex ragi dhaadasho yimi siyaad kama dhaqaaqintu dhiiga horsado. waxaan ka wadaa haddii dadka miyigu ay dhammaadaan dee magaaladana lama joogin. markaa waxaan dhihi lahaa dadka magaalada jooga lacagta tirin iyo dheemarka iyo luulka dadki way dhimanayaan oo maalin walba haraad iyo xoolo ku dhamaan dadkana ku dhamaada. haddii dadka miyigu dhamaanada inaguna noolaan mayno. cabdirashiid guura telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Zurich ee waddanka Switzerland. akhyaartana daawanaysa warkii caalamka oo idinka imanayay telefishinka Somali Cable xaruntiisa magaalada London oo aan idinla socodsiinaya anigoo Mustafa Cabdi Xuseen Shaafiya inta haynoo joogo inta warkan mid lamid aynu ku kulmi doonaa haddii Allah awood leh oo idmana dhamaantay waxaanu idinkaga tagaynaa oo idin leenahay tusan iyo khayr. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.